ducada ugu khatarsan ugu qaalisan qof stress hay ama murug qaba uu ku ducaysanay waa ducadan maxay tahay ducada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa ant ilahiyow macbuud majiro adiga aan ahayn oo xaqnimo lagu caabudayo adiga ayaa ka hufanoo nadiif ka ah wax walba oo xumaana ama nusqaan ah inni aniga oo dhibaatadan i hayso kuntu waxaan ahaa min adh-dhalimin dhalimiintan ka mid ah ilaahiyo wuxuu yidhi nabi sal ly slam lam yadcu biha ducadan kuma ducaysto qof rajulun muslim qof muslin ah kuma ducaysto rajul haddii la yara moogtahay rag iyo bilcam waa u dhexaysa yani nin kelima ah qof muslim ah ayaan dhahayna annaga qof muslim ah ku ducaysto ducadan ma jiro fii shayin ku dalbaya qatu weligiis ila istajaaba allahu lahu ila ilahay waa ka aqbala ma jiro qof muslim ah laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adh-dhaalimiina ku ducaystay oo muraadkiisa helaynin maba jiraba laakiin shuruudaa jirta qofka hadduu xaaraan cunay calooshiisa xaaraan ay ka buuxdo dharkiisa xaaraan uu yahay si kastoo ilahay u baryo maba laga aqbalay xaaraanta waa inuu ka baxa qof calooshiisa iyo gurigiisa iyo wixiisa xalaal yaa horta duca laga aqbalaa waa yani waxyaalaha ducada maaragtay in la aqbalo ama in la aqbali waayo keeni kara markaan ka hadlaynaa